baan ugu faraxsanahay munaasabadatan qiimaha badan oo aynu maanta degeen gobolatan guuradii asaaskii Puntland waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan intii isku hawshay qabaqaabada munaasabadatan iyo shacab weynaha reer Puntland gaar ahaan magaalada Garowe shacabka ku dhaqan si buugle oo dhammaystiran uga qayb qaatay uguna soo banaan baxay inay taageeraan oo ay muujiyaan taageerada ay u hayaan midnimada Puntland iyo asaaska Puntland waxaan leeyahay Puntland guul waxaan leeyahay Soomaaliya guul midnimada iyo nabadgelyada ay ka wada shaqeynaa aad u mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan halkan maartay uga mahadceliyo ciidamadeena qaaliga ee amniga oo inoo suurtageliyay xafladda tan inay dabadega si amni ah oo safe ah inuu noogu qabsoomo ilaahay maartay miisaanka xasanaadka ha u saaro ana abaalkooda ha siiyo runtii waxaan leeyahay ummadan reer Puntland maanta dabaaldeg weyn oo ay farxad wiigan oo dhan inoo socon doona xafladii weyn ee caawa inoo dhici doonto dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka Puntland oo dhan laga xusi doono maanta inoo jira waa runtii 12 sannadood waa hanaqaad waxaan rajaynaynaa insha Allah in Puntland ay waxaan muuqatay in Puntland ku gaadhay horumar la taaban karo aad u weyn oo amni horumar lix dawladood isbedeleen oo dimuqraadiyad qaan gaadhay marka runtii waa maalin u baahan in si dhamaystiran xoog loo xuso waana loo dhamaystiray hambalyo ayaan leeyahay dhammaan shacab weynaha reer Puntland meel walba joogaan gudaha iyo dibadda 12 sano sanad guura ah oo ka soo bilaabatay 1998 waa dareemi kartaa xajmiga inta ay leegtahay waa 12 sano oo horumar ah 12 sano oo nabad ah 12 sano oo barwaaqo ah 12 sano oo dadka reer Puntland hay'adaha dawliga ah ay shaqeynayeen oo ay helayeen adeegyada asaasiga ah waxay mudan yihiin in loogu hambaliyo cid kasta oo Soomaaliyeed maadaama Puntland ay tahay dawladda xubnaha ka ah dawladaha federaalka Soomaaliya tan ugu weyn qayb weyn bedka dhulka iyo badaba ee Soomaaliya tahay Puntland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان ومد الصوماليات قارهان شعب كرير Puntland ميل كستو أي جوغان دافع دونك وحن لي هاي همبليو كودا أغسطس 1998 وسقال بقول سقاشن يسديدي هيا الله أساسي Puntland قوب جوغ بانوها وكفر أحسن هاي لباتني كو سنة كدب إنان مالنتي أساس كاين نتشوغو إلهينا عمري وقارسي مانتا إنان جوغو waxaan xusuusnaa waxaan ahaa xilliga rag yar oo fara ku tiriska oo documentary-ga sameynay xilligaas film qaadanaha